wadooyinkan waa wadooyinka cusbaa ee maalinkii dhaweyto oo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni uu ku xarig jaray xafladii sanad guurada 1 Agosto. jidkan waxaa loo yaqaanaa jidka Sodonka, waa jid aad u dheer ilaa meel fog isku xiraa magaalada halbowlaha jidka ah aan dhihi karnaa, sababtoo ah kii hore oo halbowlaha magaalada ahaa isticmaalkiisa waxa ka batay hadda kan waxa ka batay kiiloomitirkiisa intuu kiiloomitir yahay caadi ahaan uma hayo, laakiin waxaan ogahay kaliya inuu yahay jid aad u dheer oo maxaan ku dhahaa magaalada meelo badan oo ka mid ah isku jara oo aad muhiim u ah. hadda meelaha aan joogno oo meelihii magaalada aadka uga baxsanaa waa xaafadihii magaalada ugu qurux badnaa oo ugu dambeeyey. waxaan dhihi karaa jidkan wuxuu kusoo kordhinayaa magaalada maalgashi, ganacsi, horumar, bilic intaba uu kusoo kordhinaya. waa mashruuc markiisii hore muddo badan rajo iyo riyo ah. waxaan xasuustaa 2015 markii la furayay jidka qaybtiisa hore in qorshuhuna uu ahaa in qaybtan la dhammaystiro, balse hadda muddo laga joogo dhowr sano ilaa 7 sano meelahaas ku dhawaad in maanta xarigga laga jaray. nasiibkaasna uu yeeshay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo xukuumaddiisa. marka magaalada Garowe waxaan dhihi karaa magaalooyinka Soomaaliya inta aan arkay ugu wadooyinka quruxda badan, ugu wadooyinka fiican way. dhismaha magaalo sharaftiisu waa wado. markii wadooyinka la dhiso waxaa ku xiga dhismayaasha kale iyo dabaqyada iyo way iska dhismaan iyaguna, way iska dhismayaan oo way imaanayaan. marka laakiin wado ciyaar laguma dhisi karo. haddii guryo hore iyo dabaqyo hore oo dhisnaa la burburiyana halkaas waxaa ku baaba'aya hanti shacabka uu leeyahay. marka jidkan sida arkaysaan waa jidka aad u qurux badan. laamiga saarana waa laami aad tayo u leh. meelihii biyuhu marayeen buu leeyahay, meelihii dadka cross gareynayeen oo zebraga loo yaqaanay buu leeyahay. intaan ayuu ku ogyahay. waa mahadsantihiin.